كبلو حاضر الحين كوابنا قصيصة جودهان نلاشة فرد خطوتية حجدير أم حريها دباب حاطين كوال جيت على السجنة فالمجا كبلو الحين كوابنا قصيصة نلاشة خطوتية هي قادتي يعني أتصل مولدين هذا صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مجا وفاضل محمد حسين haddaan faahfaahin siiyo xaryaalka dhibaato badan iyo waxbarashadoo yar waa la soo maray laakiin hadda alla mahadiisa alxamdulillaah meel kasta waxbarasho fiican baa la dhigay ilmihii madarasooyin aan loo helay iskuulaad caadi baa loo helay ilmihii alxamdulillaah maanta ilmo wax noo bartay waaye haddee ninkaan wax barinin ilmo waa iska jiraan maanta waalidkii uu dhalay oon danaynaynin oo maanta faaqid iska noqday oo ciyaartooy iska noqday oo ilmihii maanta waxbana aanan dheefahaynin way jiraan laakiin ninkii waalid ah oo ra'i leh oo maanta inuu gadaal cunugiis wax u qabto oo ku nafiso rabo maanta wuu faa'iidaystay meel ugu faa'iidaystaan helnay waayo intaas waxaan u soo marnay naftadaanadaan u soo hornay wixii maanta aan afkaanagu u wadnay inaan ayaga ku bixino ayaan qorshaysanay waxaan u qorshaysanayna waxaa waaye inay dib annakana noo soo xasuusaan oo waxa anaga ay haddana aan annakana dheefsano waayo marahad maanta adiga aad abuurataad berri guranee waay haddaad adi maanta mara abuuranin berri waxaad gurato malaha maanta iska fadhi baa tiri wixii yarood aragta adiga iska cun gadaal uma xisaabtamin laakiin markaad xisaabtantid adigana alxamdulillahi waxaa waaye waad mari dhalinaysaa iskuulka anaga alxigmo iskuulaadka maanta ugu sarreeya xagar dheer buu ku jiraa saas la awgeed waa loo soo halgami dad badan baa iskuulaad aas-aasahayo oo masana kii kaleetada maxaa la yidhaahayo maanta iskuulaad rabo oo madarasooyin dhisahaya waxaan leenahay saan annaka ugu soo harjadnay mase aan ugu soo sabarnay hadday u sabraan horta way helayaan ayagan laakiin ninkaan sabrin markastaba sabarkaa ka horreeyo ninkaan u sabrin mara dhal ma helayo waay laakiin haddaad sabartid mara dhalkaad waad heli iskuulaadka waxaan ku boorinayaa masana ilmaha waalidiinta dadka dhalay aan ku boorinaya macallimiinta anada horta kuwii jiray allaha ka dhigo maasha allah waan salaamayaa kulligooda 114 ku salaamayaa mahad badan oo ilaahay xaggiisa ayay mudan yihiin ilaahay baa mahad iska leh ayagana mahad bay leeyihiin way ilmihii way u soo horjadeen dhib kasta la gaarsiiyaa way ku sabreen cunug kasta oo waalidkiisa mid baa fiican oo tarbiyaysan oo gurigiisa asoo fiican oo tarbiyaysan ka imaanaya midna akhlaaq ma leh macallimiintu dhibi nin baa waalidkiisa waxaa jiraayo cunugiisii oo maanta wax leeyahay asagana kusii raatubaayoo leh cunugayga wixii halay macallinkaaba ka qaldanba macallinkaaba qaldan macallinkaa ka qaldan markuu uu leeyahay asagana mara dhal ma heli doono waayo ninkii macallinkiisaba dhahay cunugayga ma qaldano macallinkaa qaldan ninkii dhah cunugiisa faa'iido ma gaari doono intaasaan u sheegayaa waxaa jira iskuulo fara badan oo ku yaala xeryaha dhadhaab sida faasatan xaga dheer oo ay ka mid yihiin iskuullada sida gaarka loo leeyahay iyo iskuullada public ay maamuso dad badan baa waxay qabaan tuhun ah xilligii hore ee iskuulladana ayna jirin waxbarashada inay fiicnay maxaad aragtida seed aragtaa arrintaas isbedelka iskuulladan soo baxay maxay ka fudiyeen iskuulahaas ninkii saas u qaba ra'yigiisa wax si kalaataa ka dhaadhacsan haddee si xun ma dhihi kara laakiin si kale oon wanaagsaneyn baa ka dhaadhacsan maxaa jira iskuulaadkii hore iskuulaadkan intaana noo soo bixin iskuul bay ahaayeen haddaba iskuulaad bay noo yihiin dad baa dhigan hayo oo ilmaha noo dhigan hayo ayaga naftirkooda ma xumo waa iskuulaad oo ayagana lagu soo meel gaaray oo iskuulaadkii hore noo soo horreeyo xaryaalka oo dawladana siisay oo hay-adaha ayna siiyeen oon ku soo intifaadnay waay haddana waxaan helnay mid kaleeto maanta shakhsiyan loo leeyahay laakiin waxbarashada tayadeeda tii kaleeto ka adag tayo adag leh tayadaasna waxaa gaari waa ninkii u halgamo misena u sabro ayaa gaari waay nimaan u halgamay haddaad adiga tiraahdo maanta wixii waxbana kii kaleetada ma ahan labada beri intaas saas addaadid oo tiraahdo meesha waxbana kama soo bixinayn maba fadhin kara haddaad tiraa ka tagtid sabar xumadii ay ku jirtaa taas ma gaaraysid waay adna mare dhalkii aad raadinaysa ma gaaraysid laakiin haddaad u sabartid waad gaari waalidiinta
waxaan dhihi lahay ha sabraan waxay cuni lahaayeen ilmahooda ha ku bixiyaan waxay xirin lahaayeen ilmahooda ha ku bixiyaan waxay meel kale ku bixin lahaayeen ilmahooda ha ku bixiyaan aan dhihi lahay aniga ahaantayda hadday tahay ninkii sabro ayaa sidkaas gaaraya maalmihii u dambeeyey waxaa xerada la dhex marinaya in waxaa jira dowladda kenya ay sheegtay xeryaha dheeraad in la xiri doono waxaa ka mid tahay waalidiinta ay ardaydooda dhisan iskuulkan xidma saameyn intee dhan bay ku yeelan kartaa warbixintaas in xerada la xidha ardaydiina aan weli xaryaalka haddii la xiro oo qayb baa loo xirayaa qolo baa loo yeerahayaa laleeyahay haddii ilaahay yidhaha tan ayada hadday dhacdo saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa maxaa jira dad hadda fadhiyo oo degan oo waxaan nahay oo ilmihii waxbarasho mid maanta foofoo ah mid secondary ah mid form 1 ah mid form 2 ah mid waxaa waaye labaad saddexaad afraadba ay marahayaan ilmihii ayaga ahay maanta haddii la kiciyo waxaa waaye barakac baa ku imaanayaa ilmihii iskuulkooda iskuul aan ka sayni bay berri ku bilaabanayaan iskuulaadkii ayaga ahay waxaa waaye say oogala qabsadaan naftirkooda way adag tahay waaye masalan iskuulkan maanta nin baaba kuu dhigaayo ninkii dhigaayo maanta haddii la belodalo macalinka lagu imaadaaba ilmihii ay xoogaho inay isbartaan oo iswadaan oo macalinkii mis waa samaay mis waa fiicnay miskay ka fiicnayaan bahelnay ma ahay mid xunaan ugu hagaagi inay dhahan ay tahay laakiin iskuul mubaa adi aan ka saynin dhulkiisa aan ka saynin macalinkiisa aan ka saynin haddii lagu geeyo meesha ayada kolley mushkulo badan waa iska imaan kartaa ninkii ilaahay ku hagaajiyo hadda meel san siiyana hebel waay ma dhihi karno kama hadli karna laakiin kolley meel culus unbaan u malayn haynaa annaka ahaantaanad hadday tahay xaradaanadii haddii ilaahay yidhaaha oon hadda ku waxbaranay oo ilmihii ay noogu waxbarnaan waxbarashadood ilaa ay ka dhammaystaan inay ilmihii iska joogaan unbaa jeclaan lahayn kolley dowladda kenya taas unbaa hadda ka codsan lahayn annaga iskuulkan alxigma oo aan tan iyo shalay ku sugnayn waxaa deris la ah garoomo waaweyn oo banooniga lagu dheelo oo aan dhihi karno iskuulka dhib bay ku hayaan ilmaha garoomada ku dheelo waalid baa dhalay maxaad ugu baaqi lahayd bal in iskuulka yacni deriskiisa la hagaajiyo ilmaha deriskiisa dadka way maqlaayaan waxbarashada dhegtay ooga dhici haysaa cunugooda cunug la mid ah waa cunuga wax baran haya waxaan dhihi lahaa ninkaan hataa abood aan haynin wax ku barto cabsanayo waayo macallimiinta boqol bay u shafeecan oo ay leeyihiin walaalow haddii ilaahay raa waalidow macallinow kaad dhashikiisa la mid waaye cunugayga abood ma haya macallin inaad isaacidaysaan rabaa inay dhahaan garoonka intuu ooga ciyaari lahay inay macallimiintaas kala hadlaan ninkii abood hayana ilaahayba abood iskale uu cunugiisa keensado waxbarasho uu u keensada intaasaan jeclaan lahay laakiin waayo garoon berri faa'iido ma leh hadda xaalkan mid baan soo maray ani oo la daqroo gurigiisa loo waday oo la dabadidaayo cunugaas la daqroo gurigiisa loo waday hadduu gurigiisa joogo maanta dhib ma dhacdeen inkastoo axadba iska tahay maanta iskuul hadduu uu joogan dhibkaas kuma dhacdeen garoon faa'iido waxaan dil iyo dagaal ahayn oo laga qaaday aniga kolley iyo qashin la cuno waxaan ahayn oo laga faa'iidaya ilama jirto dadka deriska la ah dugsiyaha waxaan dhihi lahay iskuulaadka ilmaha iskuulaadka ha geystaan dugsiyaalka ha geystaan ilmahaada waxbarashada waxaan dhihi lahay waalidow ilmahaada waxbarashada ku ta'alluuda oo ilmahaada waxbarashada meeshooda geyso ani taasaan dhihi lahaa